wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inay xalay xilli dambe ee saaka socotay bixinta lacagaha musharaxiinta ay siinayaan xildhibaanada. xogta aan helnay ayaa waxa ay sheegaysaa in xarunta ololaha madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ay noqotay halkii ugu horeysay ee lacag laga bixiyay, waxaana kadib xog xisaday inta badan musharaxiinta kale. musharaxiinta ayaa bixinaya lacag u dhaxaysa 30 ilaa 50 kun, iyada oo ay ku xiran tahay miisaanka xildhibaanka iyo heerka uu ku caawin karo musharaxiin inuu xubno kale ku soo biiriyo. wararka ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo Siciid aysan weli wax lacag bixin. Filla Soomaaliya ayaa xalay keentay xujo cusub oo yaab leh, iyadoo xildhibaanada u sheegaysa inay lacagtooda qaataan kadibna seexdaan Filla Soomaaliya, taasi oo ay diideen. Filla Soomaaliya ayaa la filayaa inay xildhibaankiiba siiso $100,000 oo dollar, taasi oo noqon doonta lacagtii ku badnayd ee abad lagu iibsado cod xildhibaan, waxaana adag in la helo musharax bixin kara lacag intaas la mid ah. dhinaca kale, macadka Sahar Research ayaa qoray in uu helay warbixin sirdoon oo sheegaysa in dowladda Qatar iyo Fahad Yaasin ay si hoose u taageerayaan musharax madaxweyne Cabdiqaadir Cusub Cali. warbixintan ayaa lagu sheegay in Cusub oo wax ku soo bartay dalka Qatar isla markaana oo ka tirsan urur diimeedka Islaamiga ee Ixtisaam uu fikir ahaan aad ugu dhow yahay Qatar, uuna hadda yahay qorshahooda labaad haddii uu Farmaajo uu meel wanaagsan gaari waayo. sida aan ogaanay ila madax bannaan ay noo xaqiijiyeen, haddii warbixintan sahan ay sax tahay waxay isbeddel weyn ku samaynaysaa loolanka doorashada, waxayna Cusub ku soo saari kartaa wareegga koowaad oo ka koowaad ee doorashada. loolanka ayaa waxaa weli ku horeeya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kadib markii ay ku jabeen xildhibaano ka soo kala jeeda Somaliland iyo Koonfur Galbeed, halka uu hore u haystay inta badan xildhibaanada Hirshabelle iyo Galmudug. kasokow Xasan Sheekh, musharaxiinta kale ee la filayo in wareegga koowaad ka soo gudbaan ayaa Farmaajo, Shariif Sheekh Axmed iyo Siciid Cabdullaahi Deni iyo Cusuble, haddii ay sax tahay taageerada Qatar. xogta aan helnay ayaa sheegaysa in ay aad u badan tahay in wareegga ugu dambeeya doorashada isku soo wajahaan Xasan Sheekh ama Shariif Sheekh Axmed ama Xasan Sheekh ama Farmaajo. haddii aan wax isbedelin saacadaha ugu dambeeyay, waxaa sidoo kale meesha laga saari karin si la yaab leh uu u dhaco doorashada oo xubno lama filaan ay soo meel fiican gaaraan. xaaladda ayaa ah mid saacadda kan dambaysa yeelanaysa xamaasad, waxaana mar kasta abuurmaya isbahaysiyo cusub, taasi oo xaaladda si degdeg ah u bedeli karta. wixii wararkan ku soo kordha waxaad kala socon kartaa barteena YouTube-ka iyo barteena Facebook ee Muuse Media Page.